إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الصوم من آخر الشهر. مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت صرار هذا الشهر؟ قال: أظنه. قال: يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية: من سرر شعبان. باب الصوم من آخر الشهر. bisha aakhirkeeda, laa siyamaa shahra shacbaan, sida bacd riwaayaat ku timi, soonkeeda sunnanimadiisa. sunno miyaa mise maaha? mudarifun wa huwa mudarif ibnu cabdillaah ibn الشخير العامري. مضرف ابن عبد الله ابن الشخير العامري وتابعي isagu, laakiin aabihiis cabdullaahi bnu الشخير waa saxaabi. mudarif marka wuxuu ka warinayaa can cimraan ibni xusaynin radia allahu canhuma. cimraan ibni xuseyn buu ka wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam. cimraan ibni xuseynna nebiguu ka wariyey. cimraan ibni xuseyn waa saxaabi. annahu nabiga salى اllahu عalayhi wasalama sa'alahu, ay sa'ala cimraan, cimraan buu weydiiyey. aw sa'ala rajulan, ama nin kale oon cimraan ahayn buu nebigu weydiiyey. wa cimraanun yasmac, laakiin cimraan waa maqlayay, goobjoog buu ahaa. faqaala wuxuu yidhi nebigu: yaa abaa fulaan, war hebel abaa fulaanow, waa kunyadiisu ugu yeedhay. yaa abaa fulaan, qofkii de kunyada lama magacaabin, fulaan unbaa lagu soo gaabsaday. yaa abaa fulaan, amaa sumta, miyaadan soomin sarara haada ashahri, bishaan aakhirkeeda miyaadan soomin? bisha la ishaarayo waa shahru shacbaan, sida noo iman doonta. qaala adunnuhu. qaala yacni ramadaan. waxaa odhanayaa adunnuhu qaala yacni ramadaan waa shaykhu lbukhaari, oo xadiidka uu ka wariyey, oo la yidhaahdo abunucmaan muxamed ibnu fadlin. marka abunucmaan oo sheikhu lbukhaari baa qaala wuxuu yidhi: adunnuhu, waxaan u malaynayaa. qaala inuu yidhi, yacni shiikhiisii uu ka maqlay, yacni ramadaan. ramadaan buu u jeedaa. haada shahrida ramadaan baa loo jeedaa. laakiin sida saxiixahi waa shacbaan. وفي رواية
من سرر شعبان. رواية كلهم روايات البخاري أي شعبان سميسي، لكن شيخ البخاري أظنه والصحيح غير ظنه، ظني يعني وحويا غير كسبة صحيحة إن شهر شعبان. قال الرجل ننكو وحو يري مركو النبي يري أما صمت سرر هذا الشهر بشان آخر كذا ميادا سومين. قال الرجل ننكو وحو يري وكو جوابي لا يا رسول الله مايا ما أنا سومين. قال مركاب النبي يري فإذا أفطرت فصم يومين. رمضان مركاد أفرتيدو دميسيد لبا مالمود oo bishii shacban aakhirkeeda ahayd soo qadee sidaa buu nabigu ku yidhi. faidaa aftarta ay min ramadaan markaad afurtid ood ka baxdid fasum yowmayni laba maalmood oo min aakhiri shahri shacbaan ah soon. wa fii riwaayatin min sarari shacbaan liannahu xadiidku wuxuu ahaa أما صمت سرر هذا الشهر أي آخر هذا الشهر. شهر كلا إشارة يا هنا وشهر شعبان أي من سرر شعبان. كلمة المركز سرر سينك صدح وجيب الله أخري سرر 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 انتابا. سينك هو مثلث in la fadxiyo iyo in la hoos dhigo iyo in la godo. culimmaduna waxay leeyihiin sida afsaxaahi waa in la fadxiyo. saddexdaba waa luqooyin waa ku yimaadaan sarar surar iyo sirar saddexdaba. marka sida ugu fasiixnimada badani waa sarar. marka sarar oo siinka la fadxiyo iyo surar oo siinka la godo laba macnay kala yeelanayaan. marka sidaa darteed maqsuudka loo jeedo culummada waa isku khilaafeen. riwaayadda sarar saa haddii la qaato waxay noqonaysaa aakhiru shahri ay shahri shacbaan. ishkaal baa marka yimi. yacni nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu nahiyey ramadaan ka hor laba maalmood in soon lagala hormaro. laa tuqadimu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn. waa soo marnay sooma ahayn? waana soo maray xadiidkaas, xadiidu abi hurayra wahuwa muttafaqun caleyh, in maalin ama laba maalmood lagala hormaro. haddii marka la yidhaahdo sarar lagu fasiro aakhira ashahri labada xadiid baa iska hor imaanaysa. marka qolada marka tiri sarar baa la akhrinayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa aakhira ashahri waxay xadiidkaas kale uga jawaabeen ilaa xadiidka waxaa ku jiray ilaa man kaana yasuumuhu qofkii soomi jiray oo soon daa'imuhu soomi jiray uu ku soo aado. aakhir ashahri buu caadatan u ahaa inuu soomo, bil kasta aakhirkeeda inuu ka soomo baa caado u ahayd, ama isniin ama khamiis unbaa caado u ahayd. khamiis iyo isniin baa waxay ku soo aadeen aakhira shahri, waa soomaya. marka ninkaani sidaas bay caadadiisu ahayd. nahyigaa soo gaaray laakiin istithnuhu ma soo gaarin, markaa buu soonkii iska daayay. nebiguna waa ogaa sala allahu calayhi waaalihi wasalama inuu soomi jiray, markaasuu nebigu ku baraarujiyey. marka amaa sumta aakhira haada shahri, ilaa nebigu wuxuu ogaa inuu soomi jiray aakhira shahri, inuu soomi jiray. maya buu yidhi nahyiga ku soo raray awgeed. markaa buu nebigu yidhi marka soo qadee. marka camal mar haddaad daa'imto lama gooyo. mar haddii maalmihii aad soomi jirtay ay ku soo aaday aakhir shahri waad soomaysaa. saasay ku takhriijiyeen. qolada riwaayadda surar qabatayna waxay yidhahdeen surarka waxaa loo jeedaa ay wasata ashahri, bisha bartamaheeda baa loo jeedaa, oo ayaamulbiid ah oon xala soo marnay baa loo jeedaa. oo sarar markii la yidhaahdo waxay ka timid asalkeedu min alistisraar wa huwa alkhafaa, waa qarsoomid, halkaasay ka timid.
marka bisha aakhirkeedu saddexda maalmood oo ugu dambaysa lama arko ma soo baxdo lama arko maalinta 28aadna qoraxday la soo baxdaa ama wax yar bay ka soo hormartaa looma jeedo qoraxda iftiinkeeda qarinaysa labada habeen oo ka dambaysana waaba dibatahan dhahnaa sooma halkaasay ka timid bay leeyihiin marka waxa weeyaan sarar haddii la yidhahdo min al-istisraar ayay ka timid wa huwa al-khafaa waa maalmaha ay bishu qarsoon tahay oo aakhirkeeda ah surar markii la yidhaahdana surar waa jamcu suraduna waa xudunta sooma halkaasay ka timid marka waxay noqonaysaa wasuratu shayi wasatuhu yani shayga suradiisuna waa dhexdiisa bartamihiisa waay annaga xaggee xudunta nooga taallaa bartamaha nooga taallaa sooma wahaakada suratu kullu shayin wasatuhu wasuratu shahri wasatuha wasadkeedina maxay noqotay ayaamu lbiid الثلاثة maragta miday noqotaba marka nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama uu soomi jiray ninkani ayuu nabigu yiri marka ramadaan haduu dhamaado soon hadii ramadaan dhamaado laba maalmood soon naam باب صوم يوم الجمعة maalinta jumcada soonka la soomo oo lagu keli yeelo jumcadaad ku gooni yeele iyadana sidee buu noqonayaa hal huwa jaa'iz am ghayr jaa'iz فإذا أصبح صائما يوم الجمعة هذا كان بخاري بالي رحمه الله تعالى فإذا أصبح صائما يوم الجمعة هدو بريستو قفكو maalinta jumcada isagoo sooman yani soom buu niyeystay waa soon aan farad ahayn oo waajib ahayn فعليه أن يفطر waxaa ku waajiba inuu afuro يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده haddii uunan maalintii ka horeysa soo soomin maalinta ka dambaysana uunan doonayn inuu soomo idan marka macnaheedu maxay noqon hadduu maalintii hore khamiista soo soomay jumcada waa ku dari karaa hadduuna khamiistii soo soomin laakiin uu doonayo jumcada inuu maalinta ka dambaysa raacsiyana waa soomi karaa laakiin inuu jumco keligeed ku gooni yeelo soon tadawuca taa baa la diidaya cillada loo diida maxay tahay allahu yaclam culummadu waa isku dayeen inay raadiyaan xigmadda taqriiban 6 qowl oo kala duwan ayay sheegeen qolo tiraahda waa sidaa qolo tiraahda waa sidaa qolo tiraahda waa sidaa qolo tiraahda waa sidaa intooda badanna waa la bushiyey mid kastaba cilla loo yeelay لكن ما دام النبي نهي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا ذو كرادينيس علك لا حكمة مع ورادينيس علا ذو بحي وين النبي نهي صلى الله عليه وآله وسلم نعم محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد في رواية ماشا فاء يسين كو إذن قرن يهي في يأبا كجر زاد في رواية يعني أن ينفرد بصوم محمد بن عباد ابن جعفر القرشي المخزومي المكي قال وحير محمد بن عباد سألت جابرا أي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيام ويديي بويري محمد بن عباد ليس صحابيا إنما هو تابعي صحابي ويديي حديث كان وحويا مسألة ويديين وجابر بن عبد الله مركز سيدة وسأش أودغي واصدان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة يعني وحاو قدرا استفهام همزة استفهام أنها نبي ميون نهيي
ديدي وددك أديدي عن صوم يوم الجمعة ما لنت جمعة صوم كذا ميو النبي أديدي قال وحكو جوابي ننك اللي يرهد جابر نعم ها سابك جوابي. وفي رواية يعني أن ينفرد بصوم وحل الديدة يوام حي إنه صون مالنتا كلية صومأة وكو كلية هل كان مالين بكو كلية ليه. أما إذا صام معه يوما قبله أو يوما بعده فجائز وبننت. أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أبو صالح السمان أو الزيات لبضبا مقعي سنة وحالي ذكوان. أبو صالح السمان ذكوان مقعي سوى ذكوان. الزيات نوالو مقعابا صبق إيو زيت كبو كقن عسن شري ساسا مركا اللوغو مقعابي السمان أو الزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة غالبا كوريا إساقنا إن بدا وحا كوريا ويلكيس سهيل ابن أبي صالح. مركا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مقليب يرى أبو هريرة ويقول أورانيا لا يصومن أحدكم أحد أدنك إذن كمده يونن سوم يوم الجمعة ما لنت جمعة يونن سوم إلا يوما قبله أو بعده إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. يعني هدوب الجمعة سوميو وإنه مالك لكل مانية إما يوما قبله أو يوما بعده. لبضا مال موضة منك وري منك ضمبي لبضا مال موضة كوري سواء معي كذا أما كذا بي يوم وعكوري يوم الخميس وعنا كذا بي يوم السبت. إذا لبضا أمبو مركا مد وقفة كان وكسومي كرا إما إنه خميس وصومه أو جمعة كدره وإما جمعة دي هدوب بالله بي إنه سبت كدره لبضا مدواي وإلا إنه كليك كوغوني رميا بل ضد صومنا يبو النبي أفري صلى الله عليه وآله وسلم. قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي رواية فأمرها فأفطرت. قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي عالمك هاي مفسرك ها عن أبي أيوب أي الأنصاري أبو أيوب الأنصاري تابعي يوحنا له صحابي عن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وزوجة النبي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نبي أصوق علي جويرية زوجتي يوم الجمعة مال جمعة وهي صائمة يضا صوما بأصوق علي فقال مركاب النبي يري أصمت أمس؟ شلم صومتي وشل دي خميس تاهيد سوما شلم صومتي. قالت وحي تري لا مايا. قال مركاب النبي يري تريدين أن تصومي غدا مدوني ساينة بري صومته؟ قالت وحي تري لا. قال مركاس يري فأفطري. في رواية فأفطري إذن هذا مسيدا يلينين شلنا آدن سوسومين برهنا آدن كدرينين هذا ويسك أفر سيداب النبي كير صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فأمرها فأفطرت أي فأمرها أن تفطر فأفطرت
nabigii wuxuu amray inay afurto iyadina waa aqbashay oo way afurtay. idan xadiistaasoo dhan waxaa loo daliishaday maalinta jumcada inaan soon lagu gooni yeeli karin oo soonka keligii maalinta lagu gooni yeelayo manhiyun canhu yahay. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم. هذا يعرف النقطة وأكتها إن يعرف كسو هذا يصوم اليوم الذي قبله وبعده. نعم. سواء كان في عرفة أو في غير عرفة. نهيك waxaad kaga baxsan kartaa inaad ku idaafayso yawman qablahu aw yawman ba'dahu. nacam inay carafa berri ay tahay carafo waa garanaynaa, berrina waa jumca soo ma. maantana waxaan joognaa caawana waxay noo tahay khamiis. sum alkhamiis adif ilayha sawma aljumca. nacam. idan xadiistaasoo dhan waxaa loo daliishaday marka oo culummadu ay u daliishadeen inaan jumca lagu gooni yeeli karin, soon inaan lagu gooni yeeli karin ilaa in maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa lagu dara mooye. nacam. طيب xigmadda loo diiday allahu yaclam. waxaan ku khasbannahay nabiga sala allahu calayh wasalam wixii ka yimid oo khabar ah oo ka ansaxa inaan qaadanno soo ma. nacam. baabun yacni xigmad ka weyni miyaa jirta oo ka faa'iido badan mutaabacada nabiga sala allahu calayh wasalam? abadan. hal yukhasu shay'an min alayaam. هل يخص ده باب هل يخص أي الشخص الذي يريد الصيام قفك دون يئن صومه ميوغوني ليا وصونك اللفر سنيا شيئا من الأيام وحون مالمها كمدة مالين سبتي إن اللي إيغتو مالين شمعاء إن اللي إيغتو مالين إن ذون اللي إيغتو أيام تاس وسوما إلا وإلا مي أجرت maya ayaamahoo dhani way ku furan yihiin ilaa wixii nahyi ku soo arooro ama nabiga sala allahu alay wasalam ay ka sugnaato inuu soomi jiray soonkeedan uuna ka tegi jirin sida yowma alithnaini wa yowma alkhamiis. nacam. ibraahiimu can calqama qultu licaaisha radia allahu canha hal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yakhtasu min alayaami shay'an قالت لا كان عمله ديما وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. سيدي السبا صونك الصنباء بالأون النبي قسومين ما بشر تبع بالأون النبي قسومين ما بجر تبع بالكس النبي قسومي جري صلى الله عليه وآله وسلم. bisha ugu badnaa ugu soonka badanaana waxay ahayd bisha shacbaan. waqti kasta waa furan yahay maaragta ilaa haddii ayaam ay yimaadaan ayaamulciid soonka waa muxaram lama ogola. jumca inaad maaragta ku gooni yeeshana ayadana maya waa la diiday. waa inaad ama yoom hore ama yoom dambe. yowma alithnain iyo yowma alkhamiis nabigu ma dayn jirin. يوم عرفة سيدو كالي يوم مارتي محوها عاشوراء سيدو كالي إيضانا وسومي جري سون كيدو وسنة مالمه سيدا سو كلا وقصو أروريها وقف سنين. نعم. مالمه النهي وقصو أرورينا وكاستاقينا. أما أيامها كالي إن شئنا نصوم وإن شئنا وهكذا. نعم. لكن إن مالين قونية أيام قونية يوم الربوع أو كلا 4 أو كلا 3 أو كلا سبت أو كلا لا. نعم.
marka waxay ku tiri la maya kaana camaluhu diima camalka nabigu daa'im buu ahaa yani bil uuna soomi jirinba maba jiraba kaana yasuumu wa yuftir hadduu maalin soomana maalmuhu soomo sida badan waa daa'imi jiray markaas bay tiri wa ayukum yutiiqu maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yutiiq kiineebaa awooda wixii nebigu awooday wuxuu nebigu awoodi karay oo daacaa ummaddu ma awoodo bas laakiin maxay ma'muur ku tahay wax la yidhaahdo muxuu ahaa sadiduu waqaaribu assadaadu waalmuqaaraba inay dadaalaan biqadri daaqatihim intay awoodaan oo inaan isku kallifin baabu sawmi yowmi carafa marka maalmaha si gooniya ay ugu soo aroortay soonku ugu soo arooray carafa ka mida baabu sawmi yowmi carafa carafa waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija soonkeeduna ajarkiisu aad buu u wen yahay marka waxaa loo kala qaadayaa qofku hadduu xaaji yahay oo carafo uu taagan yahay iyo hadduuna carafo jooginuuna xaaji ahayn hadduu carafo joogo laa yasuum sida saxiixa ahi waa saas hadduuna carafo joogin yasuum waa soomayaa soonkiisu waa mashruuc cumayrun mawla cabdillaah ibni cabbaas ويقال مولى أم الفضل عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية وأم عبد الله بن عباس وي أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وآله وسلم عمير مولى عبد الله بن عباس ويقال مولى أم الفضل وأم عبد الله بن عباس marka labadaba waa loogu yeeraa mawla cabdillaahi bni cabbaas buu ahaa iyo mawla ummi lfadli buu ahaa nacam labadaba waa loogu yeeraa marka cumayr wuxuu ka warinayaa can ummi lfadli bint alxaarith oo ahayd ummu cabdillaahi ibni cabbaas magaceedana waxaa la dhihi jiray lubaabata bint alxaarith alhilaaliya ana naasan tamaarow cindaha dad baa isku khilaafay ku murmay yowma carafa maalintii carafa fii sawmi الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam nabiga soonkiisa bay ku murmeen oo isku khilaafeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen huwa saa'im nabigu waa sooman yahay wa qaala bacduhum laysa bisaa'im qolo kalena waxay yidhahdeen ma soomana qolo walbaa waxbay deliishan qolada tiri yani wax xaqiiqa lama hayo isagoo wax cunayana lama arag soo ma haddee inuu sooman yahay inuuna soomanayna lama oga maanta nabigu ma sooman yahay mise ma soomana baa lagu murmay qole waxay yidhahdeen huwa saa'im jaryan calaa caadatihi caadadii nabiga sala allahu calayh wasalam maxay ahayd inuu soomo saabay marka u yidhahdeen huwa saa'im qolo kalena waxay yidhahdeen laysa bisaa'im ma soomana limaada qaaluu liannahu musaafir nabigu waa musaafir ilaa safarka waxaa loo afuraa soonka faradka soo ma marka waxaa min baabi awla ah soonka sunnada ah marka labadoodaba wax daliilaho qawiya ma hayaan marka maxaa la rabaa marka in la helo waxaa la yidhahdaa shaahid ulwujuud yani shaahid xayi ah umilfadli baa tiri marka anaa idin kala caddayn inuu nabigu sooman yahay sala allahu calayh wasalama iyo inuuna soomanayn fa arsalat ilayhi waxay nabiga u dirtay biqadaxi laban weel caana ku jiraan wa huwa nabiguna waaqifun calaa baciirihi ay waaqifun bicarafa wa huwa calaa baciirihi nabigu wuxuu taagan yahay carafaad waa cashiyata carafa
gaadiidkiisii hashiisii buuna saaran yahay la taagan weliba oo waa loo jeedaa markii loo geeyey oo loo dhiibay nabigu waa qaaday fasharibahu waana cabay dadkuna waa u jeedeen marka yaa maxaa xaqiiqoobay marka nabigu inuunan carafo soomanayn salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xadiidka ku xiga kurayb mawla ibni cabbaas bardu mararka qaarkoodna mawla ummi lfadli baa isagana la yidhaahdaa can maymuuna radia allahu canha ana annaasa شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون كريب سونا وحورنا عن ميمونة وميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل أم الفضل هذا النصومر حديث كوري ورنا يسي ولا لا أهايين ميمونة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين مركا ميمون كريب كورينيا أن الناس ضدكي صحابتي شكوا ده ويشكيين في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة نبي الصوم كي سبي كشكيين مالنتي عرفة ما أنت مسومية نبي قوم مسومنا عرفة أنا لجوجا يوم عرفة بعرفة maalinta carafo ma sooman yahay maanta oo carafo ah ayadoo carafo la joogo maymuuna marka waxay qaaday tallaabo ay ku hubinayso nabigu inuu sooman yahay inuuna soomanayn fa arsalat ay maymuna u dirtay ilayhi ila rasuuli sala allahu calayhi wasalama bixilabin weelka xoolaha lagu liso oo kale ah وهو نبينا واقف أويا كيتاغا في الموقف أي الموقف بعرفة موقف كعرفة بتاغنا عند جبل الرحمة اكتسب النبي تاغنا صلى الله عليه وسلم مركبي أدرتي ويل عانا كتشران أما برح وكتشرو فشرب منه نبي كعبي والناس ينظرون والحال الناس ينظرون دتكنا يوجدان إلا قاديد كسارية مركا حديثكو وإسل حديث قضية وإسل قضية مسألة وإسل مسألة يومكو هالمالنا دتك شكي قدو مركا عدة بيها درتي ونبي قوالك بيهو وحكوشيران عانوه كجيران أدرتي ما أم الفضل مية مسه وميمونة هل كاسب إشكال كيبي إشكال كاسب لو حلينايا لبا وجيبا والو حليي لبا وجيبا لو حليي وحيا هايد لبدودو با مid kastoo ka midihi ila ma waa mowqifkii baa la jooga saxaabaduna way badan yihiin saxaabadii oo dhan baa ka wada shakisay majmuucadii maymuuna muxuu ahaa la joogay umilfadli dee umilfadli baa u dirtay qadiyadii marka waa labadaba laba jeer baa la diray marna waxaa diray umilfadli marna waxaa dirtay maymuuna laba meelood bay kala joogeen labadoodaba saxaabadii la joogtay way ku shakisanaayeen marka qolo walba kaanama ra'yigoodii baa isku mid noqday amaba ma ahee labadoodaba isla wada joogay oo wada diray marka ninka la yiraahdo umayrna umilfadli buu ka wariyay kuraybna maymuunu ka wada wariyay labadaba waa suuragal naam baabu sawmi yawm alfitr marka إذا مركي حديث كان مركي لبدن حديث اللي يسوقيه يا حديث كانت يكسو أرورتي إنه السنة هي ما أنت عارفين لسومي كره ولبا وانا صوم مريم بان لينا يا قاركود مركي اللي يسوقيه قفك عرفتها جن استقل الله ما السنة إنه صوم يوم عرفة إنه أفرنا ضبا أفضل سيو وحو جابه دعاء إيه وقوفك إيه ذكرك إلهي سبحانه وتعالى أما قفك أن مركع عرفة جوجين إساقوه وحاويا وحافظ بضن حتى دو حاجي هي وقلبني ماذا أنا عرفة جوجين إمام النووي وحولي هي وسومي كرا
laakiin hadduu galabnimadaba uu carafo joogo maalinta carafo uu carafo joogo maya ma soomayo. nacam yowm alciid marka sawaء kaana ciid alfitri aw ciid aladxaa yowm alciid lama soomi karo. soomka maalinta ciidu waa muxaram lama soomi karo. hadduu qada yahay hadduu kafaare yahay hadduu maaragtay muxuu yahay uu yahay muxuu ahaa nadar yahay yowm alciid hadday ku soo aado lama soomayo. nacam lannahu muxaram ayaamu aklin wa shurbin ayuu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam. أبا عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أبو عبيد مقعيس وحال هذا سعيد بن عبيد. أبو عبيد وكنيديسة مقعيسنا وسعيد ابن عبيد وافقت كنيته اسم أبيه. كنيديسي وحاس وافقي يا مقعي أبيه أبو عبيد سعيد بن عبيد مولى ابن أزهر. ابن أزهر مقعيسنا وحويا عبد الرحمن بن أزهر بن عوف. قال وحيري شهدت يعني نكال أبو عبيد بوحولي شهدت العيد عيد بن حاضري انقوب شوقها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب أيان عيد لحاضري في أيام خلافته أيامه خليف كأها. فقال وحير عمر ضدك إسقوا وعدين يمانتي عيدة هذان يومان لبضاني والله مالمود. هذان ذا يعني إشارة تثنية ذا ويومي العيد لبدا عيدود وي عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان يومان لبضاني والله مالمود يعني أيام العيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي نهيي عن صيامهما صونكود نهيي لبضاني والله مالمود soonkooda nabigu nahiyey oo diiday. ishaaradu waa maalmaha ciidaha. markaasuu fasiray yowmu fitrikum maalinta aad afuraysaan min siyaamikum siyaamkiina aad ka afuraysaan. siyaamka ramadaan kaana mutataaliyan kula yowm min ayaami ramadaan soonku waa taagnaa soo ma ahayn. goormaa soonkii ramadaan dhammaanaya markii ramadaan dhammaado soo ma maalinta ciidda khalaas waa la afuraya. marka maalinta aad afurteen soonkii ramadaan aad furteen maalin waa taas waa awal yowm min shahri shawaal. walyowm alaakhar maalinta kalena ta'kuluuna fiihi min nusukikum nusugiinna unbaad cunaysaan. waa maalinta ciida ciid aladxaa udxiyadiinnii iyo nusugii aad gowracdeen ood xajka ku gowracdeen hadyigii unbaad cunaysaan. labada maalmoodba waana maalinta tobnaad ee bisha dilxija yowm alciid alakbar yowm annaxrina waa la yidhaahdaa. labada maalmood labada ciidood ah ciid alfitri iyo ciid aladxaa labada maalmoodoo ciida lama soomi karo. nabigaa nahiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam aya sawmin hadduu sunno yahay iyo hadduu qada yahay iyo hadduu nadar yahay iyo hadduu kafaara yahayba lama soomayo. عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. حديث كان دور نهي باكسو أرورتي miduu mas'aladan labada ciidood soonkooda ah weeye. midna waa mas'alo kale oo qaab
qaababka dharka loo qaato loo labisto kamida midina laba weeye qaababka dharka loo labisto laba qaybood oo kamida nahyigu ku soo arooray iyo salaadaha kamida waqtiyaalo aan salaad la tukanaynin oo salaadu ay manhiyun anhu tahay afar nahyi baa ku soo arooray marka xadiidkan waxaa warinaya camr ibnu yaxya can abiihi camr ibnu yaxya ibnu camaara ibni abi xasan almaazini kitaabu salaad buu nagu soo maray sanadkan camr ibnu yaxya can abiihi uu ka warinayo cadad min almaraat buu nagu soo maray kitaabu salaa juskii koowaad marka camr ibni yaxya ibni camaara ibni abi xasan almaazini nacam can abiihi maaziniyiintu waa ansaar can abiihi aabihi yaxya ibni camaara ayuu ka warinaya ladiifo kalena waa ku jirtaayo riwaayat alabnaa'i can alaabaa ubadkiiyo aabbayaalkood ka warinaya baa ku jira can abi saciidin alkhudri radia allahu tacaala canhu abaa saciidna waa ansaari kale kulligood waa ansaariyiin yarwi bacduhum can bacdin saddexdoodanba qaala wuxuu yidhi abu saciid naha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama can sawmi yowmi اlfidri waاnnaxri maalinta ciid alfidriga iyo maalinta ciid اladxada soonkooda baa nebigu nahiyeyey oo diiday wa can isamaa'na waa diiday nebigu waa qaabka dharka loo qaato qaab ka mida wa an yaxtabiya alrajulu fii thawbin waaxid iyo ninku inuu ku jilba xidhto fii thawbin waaxid hal mara ah wa can salaatin bacda الصubxi wاlcasri salaad bacda salaati الصubxi la tukado xataa tadluca الshamsu watartafic ilaa qoraxdu ay soo baxdo ay soo kor noqoto qiida rumxin oo kale qadar waran haddii sida loo qotomiyo ufuqaaga jooggiisoo kale ay timaado oy dhulka kor uga soo kacdo iyo wa bacda salaati alcasri xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo garanay sawmu yowma alfidri iyo wannaxri iyo salaada bacda salaati الصubxi wa bacda salaati alcasri xataa tadluca الshamsu bacda alfajri wa xataa taqruba الshamsu bacda alcasri intaa fahamnay wa can الsamaa'i wa an yaxtabiya الrajulu fii thawbin waaxid ayaa waxaa weeyaan waxay u baahan tahay tafsiir ishtimaalu الsamaa wax la yidhaahdo ishtimaalu الsamaa qofku hal maro oo keligeeda ayuu huwanayaa oo isku duuduubaya maxaa la yidhahdaa soomaaliga ya garwaaxiidsiga si kalena waa la yidhaahdaa garwaaxiidsigu markii labada maro la isdhaafiyo adraaftooda tan ma ahane wuu isku duuduubayaa waa isku maraagayaa maraag ma la yaqaanaa ya maradan buu intuu isku wareejiyo isku duuduubo ayaan marada meelina ka furnayn gacmihiina hoos bay jiraan wax khatarihii hadday ku yimaadaanna iskama difaaci karo taasaa la diidayaa marka si kale waa lagu fasiraa hal mara keliyuhuu qabaa jasadkiisoo dhan buu ku asturay hadduu adraafteeda isdhaafiyo waxbay u asturee laakiin ma yeeline daraftaan markuu xagga garabka saaray tii kale meeshuu darafta kale saari lahay buu garabka ka soo wareejiyay asoo halkaan saaray dhinac qaawan marka sida qoladan masayda iyo dharka u qaataan waa qaawan yahay cawradiisa waa ka shifan tahay soo ma qaabkaasoo kalena waa lagu fasiray labada tafsiirba dee midna cawradii baa ka shifan midna asagaaba khatar ku jiro haddii wax dararihii ku yimaadaan gacmihii meeluu ka bixiyo isaga difaaco ma qabo soo ma aragtid labadaa markaba labada shakliba nahyigu waa wajiih
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد هل مروق بي oo dhexda ugu xirnayd marka raggu markay isu yimaadaan oo gar iyo waxyaalaha lagu jiro waa la jilba xirtaa Soomaa hadduu laba mara haysto maradan kale iyo cimaamadiisu inta soo wareejiyo dhabarka soo mariyo buu jilbaha ku xiran maragta maradii marka dhexda ugu xirneed oo kaligeed uu guntanaa buu inta furtay buu ku jilba xirtay marka maxaa dhacaya inuu qaawanaado Soomaa taaba dhacaysa أيضاً لما أقول لأنه كشف العورة ليس أمراً هيناً تاهل أقاده شأن العورة شديد شأن العورة شديد يعني سهلاً نعم لبضا بمركا النبي قوة ديدي واللبو حب أو لبس أو درقات أحسنها هو درك اللوقات ولو لبس الله أرموضا كمدوي وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد انت ما النبي قوة نهي ماشي هذا حديثك وكجدا ليه إمام البخاري سببتي سأباب كانوا قصوا أروريي وقيبت هوري عن صوم يوم الفطر والنحر باب صوم يوم النحر يعني بابكم حوها صوم يوم الفطر برضو يوم النحر نوالمت نفس الأحاديث مركادنا باب كلو كدغي عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة باب صوم يوم النحر يدنا وممنوع عطاء بن ميناء مولى أبي ذباب المدني صاحب أبي هريرة والراوي عنه أبا هريرة صاحب كأهان جري وحنك وري جري عطاء بن ميناء رضي الله عنه قال أبو هريرة وحجري ينهى ولا نهي عن صيامين لبصون وبيعتين إيا الله بيع ذاتك السوق لي ذا حديث كان مهم بويه لبصون واللبصون والله بده الفطر والنحر لبصون يعني ومحي صوم يوم الفطر وصوم يوم النحر لبدا بولديدي ولا بدا عيدود وهكذا ينهى لنهي عن الملامسة والمنابذة واللبا أيضنا شكلي أما قاب أو حلوك لقته قابك هورتا للرواهي وحو يهي مثلا دكان بات شوكتا badeecana waad haysataa qofku markuu ku yimaado badeecada aad ka gadaysaahi waa inay laba tahay cayn hortiisa taalla iyo mid maqan laakiin mawsuufa ah oo sifadeeda markii la tilmaamo la yaqaano waa inay noqotaa cayntu hadday hortiisa taallo waa inuu iska fiirfiiriyaa ceeb ma leedahay mise ma laha asli ma tahay mise waa musayaf soo ma waa dhar wax badan waxba la isoo geliyaa soo ma waa inuu hortiisa taallaa markuu ku qanco arko inaynan ceeb lahayn badeecadu rabayna ay yihiin lacagta iyo qiimaha markay ka heshiiyaan maragta siiqa waxaa jiri jirtay inta iiga gad iyo waa kaaga gaday بس انتهى هذا مركب وحاب بدلي واحد اسك عرفية مؤاخذة إن لك لقاته لعقتين أوسيو سقون أوقاته صما ملامسة ومحي ضاقت دوبا يا مرض دوبا اسكو دي حجرت اسكو لالابا ووحي تهي هوس محي كتاي كركا واللوغة تشيدا لكن هوس محي كتاي موغا كوما أقولي إنها تفتشتو فيرفيريسيد مرضى سو معها وكا قضي كلي وحان كو أقولي تابا الشذا وحوالوغو أقادا ومرضى نعومة ديدا إيو خشونة ديدا إيو إيا أصالة ديدا إيو ولوغو كلا أقان كرا تابا الشذا لكن إلا مرضى هوست ديدا كو جرتاهي تابا الشذا كوما أقان كرتيد بس بركو حكولي تابا شان كو أقولي ما ركتها ما تابتها خلاص وكا قضي
خيارنا ملهد خيارنا ملهد تاسو كلوي ساسا لو جيدا وحي ليهن أن يلمس ثوبا مطويا من غير تقليب أو في ظلمة أما مقدي بابا لجوغا هذا حتى لغو فرفر وحبا مجيدد مركزو كاقضيا على أنه لا خيار له إذا رآه مركو أركو خيار ملهد حتى هذا عيبي كسو بعضه خيار مله واسيدان كاقضيا مربطا بطيها مع السلامة مركا waxaa ku jira qarar wax la yiraahdo qarar qofkii baa lagu kadinaya lagu qadan qudinaya qorta loo gelinaya soo maragtay dhiba ku jira marka ma ansixin marka beecaas oo kale ay tahay ma ansixin beec kale waxaa jira la yiraahdo munaabadana ayaduna waa sidee munaabadadu ayaduna waxa weeyaan waxaa jiri jirtay waagii hore marka qaarkood laba mar la isiisana laba mar la isku gadaya inuu maradan iga gad maragta يعني أحد الثوبين ثمن للآخر مردان تاني العقوتة تاني العقوتة سما مركا أدوغو الصوت هوري أصنع الصوت هورا خلاص وكو قبلنا هذا يكون في عناتو هذا مارد كايراتو تاري كايراتو هذا كويناتو هذا كحماتو هذا كفي عناتو وهو اسمه راعنينو أنا صوت هورا وكال قادنا بس ورمي مردان وتاتا بدان أديك كسيه وكيرتاي إلا اسكو متر معها مذا لقيا بين در كيدو وياي لما متر بل عيدنا متر يا بريهاي مدنا وهل متر ياهاي ببلر كيدنا نصف متر ياهاي ما يصدق مان ومايا خيار ملهيد وجاهلي بي سمنجرين لبضبا جاهلي أي سمنجرين أما وحو كلي هاي مردان قيمه هذا وإنتاس هدان كوسو تورو كاناتر وكو توري كوسو توري خلاص مركا كبعدي كمان نقول كرتت يا وكوجو واجبي تعال ما أقول مرك يعني مالها قاركود وحنا لا ياب لها يوم كو أرجنا يمارس محوها عروري يرير وحوجا وحيالها قد قدنا يسكن مساكينه مالها مارت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وحبي وحكو قد قدان تصبحي مركا حجيدة وكينان سكو حرحرنا وطبعا عبا مركا صادو حالا إيديب أن أركي وإنها في صدر تعال تصبح كلا بحضه ما كقاضي هل كازو كايستاجا مرة أولى توشلسي توري على السي مركز حاج وتحشوضي لو المير يرى بوتومكي سينا يا سكون دن كلا حين مركز جاهلي جي تاسو كلا جرت ما تابطها ما كوسو ترى بسوي خلاص وكو قضيه لما أقول تاس وغرر باكجرة لما فيها من الغرر مركز سيدا سولية هي نعم ينهى عن صومين وبيعتين عن صوم يوم الفطر والنحر وعن بيع الملامسة والمنابذة زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. زياد بن جبير ابن حية ابن مسعود الثقفي قال وحير جاء رجل نبا يمد إلى ابن عمر بؤيم نبا وحؤيم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مركز سؤال ويدي فقال وحير رجل نذر نذري أن يصوم إنه صوم يوما مال بمقعابي مال هبلا إن صوم با إن إلهي النذري بوير قال وحيري قال وحا أراني ياهي وحويان جاء الرجل ننكي ليروي ننك سائل كاهي وحويديني قال الجائي ننكي يمدو سؤاشا ويديني وحيري أظنه وحانا لينا يا ننك وحن نذري قال إنو يري الاثنين يعني نبا وحي ننا سؤال عبد الله بن عمر ويدينيه سؤال شو ويديني سؤال واسقوا لي ما هو سؤال وننك لكسيدو ننك لو كسيدا نيكو كسيدا محيري وانو النذري مالين انو صومو ايو النذري ولما وحان امالين انو مالنتا مقعابا ويريبو يري مالنتا اسنين تبا النذري مالين اسنين انو صومو ايان النذري ربي النذري فوافق ذلك يوم عيد
مالين عيد أبو وافقي مالين عيدنا صون كذا محوها محرم بوها صمة محل صمينا يا أبو يرمرك فقال ابن عمر وحي يليكو جوابي أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ربي وحو أمري نذرق إن لأوفيه النبي يقول وحو نهيي ما ننعيد إن للصوم إذا مركا جواب تاس مركا وحكم وقت النوع من الإشكالة كيلا قادنا إياه نذرق إن لأوفيه وفرض واجبة صومه مالين جمعة مالين عيدة إن لصومنا ومنهي عنه سيدا سوكال هديت ما دمرك وأمر إيا النهي في موضع واحد أي السقوي مادان محال صمينا نهي قال مرنا قاعدة واساس النهي مقدم مالين تا إسنين تا oo ay ku soo aaday ciid lama soomayo laakiin isniinta dambu oo finaya nadarki ila isniinta waa soo noqotaa sida aan baa la sameeyay marka qaacidadu waa saas قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا حديث كانوا تقدم وأنه صهر مري وحنا كتاب الحج إنه نقصه مري قزعة وهو ابن يحيى ابن الأسود البصري قال وحير سمعت أبا سعيد الخدري أبا سعيد بن مقلي رضي الله تعالى عنه وكان وحناها أبو سعيد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة لبي يتبندو لامبو النبي قال السعودي ومدة دير ومدة أدياد دير مدة داسي قال وحيري أبو سعيد معناه وحال وحو سيدا أولي هي صحبة النبي قال صاحبين يرين أبو سعيد الخدري بل ولبه وحو كمده من المكثرين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي إن بدأ وحكا ورسو كمده مركا وحيري أبو سعيد وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أبو سعيد وحيري سمعت وان مقلي 4 مسألة أيان من النبي صلى الله عليه وسلم كمغلي يعني في حديث واحد في آن واحد فأعجبنني أدبي عجب قليين بويري ووشي على ضي علمي قردن باساسة ما من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأعجب الأحاديث لا شك قال وحيري لا تسافر المرأة هوين يدوين سفر مسيرة يومين مالين سعود كيد إلا ومعها زوجها إنه زوج كيدي لا سعود مويه أو ذو محرم أما محرم قفوه إنه لا سعود مويه ولحاجتها إليهما أدبي أقبها انتهي نعم ولا صوم في يومين لبما الموضنا صون كود مجره ين لسومين الفطر أي يوم الفطر يوم عيد الفطر والأضحى ويوم عيد الأضحى لبضا ما الموضنا ين لسومين ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع عن كدر بقيد رمح صلاة الصبح مركي لتكذا كبعدنا صلاة مجرته إلى أي قرعة كاس محوها أي قرعة صور لته أي كرء صوك عظم مركا ولا بعد العصر صلاة عصر كبعدنا صلاة مجرته لما تكن حتى تغرب إلى أي قرعة دعضه ولا تشد الرحال رركن الله مدو تشيو يعني رر لو مدو تشيو سفر لو ما قلب لغا ودا إلى 3 مساجد 3 مساجد مويه
culimmadu marka way camimaan oo waxay yidhaahdaan aya mawdic oo qofku uu ugu safrayo yacni fadiilo iyo ajar iyo thawaab awgeed uu ugu safrayahi ma jiro ilaa ilaa 3 masaajid 3 masjid mooye masjid alxaraam dee isaga waxaa loogu safrayaa cibaadooyin waxaa jira masjid alxaraam in lagu guta mooyaan wax kale meel kale lagu guta aan lahayn sida dawaafka oo kale soo ma meelaan masjid alxaraam ahna la dawaafi kara miyaa jira waa maya midda kale salaada lagu tukadaahi fadligeedu aad buu u badan yahay salaada keli hal salaadii lagu tukada xaramka masjid alxaraam lagu tukadaahi ayaa waxay ka fadli badan tahay 100,000 salaa oo meelaha kale lagu tukado ilaa masjidka nabiga iyo mooyaane wa masjid al-aqsa iyo masjid al-aqsa oo qudus ku yaala oo asagana salaada lagu tukadaahi ay 500 salaa tahay iyo wa masjidi hada masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo salaada lagu tukadaahi ay 100,000 salaa tahay 1000 صلاة نعم كوا بaa marka loo safri karaa adoo ajar iyo thawaab iyo fadiilo u raadinaya meel aad ajar iyo fadli iyo thawaab iyo fadiilo aad ka raadinayso oo loo safri karo inta ahayn ma jiraan نعم idan marka xadiidka waxaan loo soo daliishaday labada maalmood oo ciidaha inaan la soomi karin ila soonkan ku jirnaaye نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك